Dhammaanteen waxaan dareennaa daal iyo cajis kadib marka aan maalinteena shaqo dheer qabanno. Mana ku soo dhacayo qalbigeenna waxaan ka ahayn inaan sariirta isku tuurno, bal inaan helno hurdo aad u macaan oo dheer. Waxaa jira dhowr qodob oo ay dadka inta badan sameeyaan, kaas oo ka hor istaaga helidda hurdo raaxo leh. Si aad qodobadaas u sii ogaato, sii daawo muuqaalka. Cabidda biyaha. Waan ogahay waxaa maskaxdaada ku soo dhacayo. Miyaysan biyuhu ahayn kuwo u fiican caafimaadka? Haa, waa sax arrinkaas. Jirku wuxuu u baahan yahay biyo xilli kasta. Laakiinse waxaa lagu taliyaa inaan la cabin biyaha ka hor inta aadan seexan. Ugu yaraan 1 saac. Haddiise aad biyo cabto marka aad seexanayso, waxaad ku dhibtoon doontaa inaad musqusha u soo kacdo xilliga aad ku jirto hurdada dheer. Taas oo dadka qaar ku khasbayso inay ku laaban waayaan hurdada. Qodobka 2. Qaadashada cunto badan hurdada ka hor. Dhammaan waxaa la wada ogyahay in cunidda cunto badan hurdada ka hor ay keento caajis iyo khalal badan oo ku yimaada hurdada. Xaqiiqaduna waxay tahay kuma xirna cuntada aad cunayso badnaanshaheeda, laakiin waxay ku xiran tahay waqtiga aad cunayso. Haddii aad cunto badan, maskaxdu waxay qaadanaysaa go'aan ah inay soo jeedo. Sidoo kale cuntada aad xilligaas cuntay waxay wax u dhimaysaa dheefshiidka, taasoo marka dambe kugu sababi karto inuu miisaankaaga siyaado. Sidoo kalena aad mushkilad kala kulanto caloosha. Qodobka 3. Jimicsiga. Jimicsigu wuxuu la mid yahay biyaha. Samaynta jimicsigu wuxuu faa'iido caafimaad iyo firfircooniba u leeyahay jirka. Laakiinse waxaa lagu taliyaa inaan la samayn ka hor hurdada. Hal jimicsi oo aad samayso hurdada ka hor ayaa laga yaabaa inaad ku weydo helidda hurdo macaan. Sidaa daraaddeed, waxaad ka digtoonaataa inaad samayso jimicsiga xilliga aad seexan rabto. Qodobka 4. Ciyaaraha gameka iyo isticmaalka telefoonka. Iska ilaali isticmaalka telefoonka xilliga hurdada ka hor. Isticmaalka aaladan kaliya kama hor istaagayso hurdada, balse waxay kugu sababaysaa inuu jirkaagu soo daayo hormoon loo yaqaano melatonin, kaasoo khalal kugu keenayo xilliga aad hurdaysid. Si aad taas ugu fogaatana waxaad isticmaali kartaa okiyaalo ka ilaaliya iftiinka faraha badan, ama waxaad telefoonkaaga saaran kartaa dark mode. Waxaana intaas oo idil kaaga roon inaadanba isticmaalin muddo 1 saac ka hor hurdada. Qodobka 5. Qayluusha ama hurdada duhurkii. Hurdada duhurkii waa mid fiican, una fiican caafimaadka, laakiinse haddii ay badato oo ay joogto noqoto, waxaa halis ah inay hurdada habeenkii ka saamayso oo aadba hurdi weydo. Cilmi baarisyadu waxay tilmaamayaan in dadka jecel inay maalintii seexdaan ay inta badan ka sheegtaan hurdo yari xilliga habeenkii ah. Sidaa daraaddeed, baahi uma qabtid inaad maalintii oo dhan jiiftid. Haddiise aad ka maarmi weydo, ha ka badin 10 daqiiqo, si jirkaagu uu u helo nasiinada uu u baahan yahay. Qodobka 6. Firaash ama gogol aan hagaagsanayn. Inaad ku seexato firaash nadiif ah oo hagaajisan waxay si qoto dheer kaaga kaalmaynaysaa hurdadaada xilliga habeenkii. Qodobka 7. Akhrinta buugaagta. Kani waa arrin ay la yaabi doonaan in badan oo dadka ka mid ah. Waxaan wada ognahay in akhrisku yahay caado aad iyo aad qiimo u leh, sidoo kalena leh manaafacaad aan la soo koobi karin. Laakiin waxaa la isku haystaa haddii uu akhrisku ku soo beegmo waqtiga hurdada wax yar ka hor. Waayo akhriska wuxuu sidoo kale saameeyaa maskaxdaada, sida ciyaarta gameka telefoonka u saameyso maskaxda oo kale. Waxaa waliba sii daran marka buugga aad akhrinayso yahay mid xiiso badan, taasoo kugu khasbayso inaad sii wado akhriska, xataa haddii aad xilligaas ugu talagashay hurdo. Qodobka 8. In aadan lahayn xilli kuu gaar ah oo aad subax walba soo kacdo. Waxaa habboon in aad subax walba soo kacdo xilli isku mid ah. Way kugu adkaan doontaa inaad joogtayso arrinkan, laakiin markii aad waqti badan ku celceliso, wuxuu noqon doonaa mid caado kuu noqda. Qodobka 9. Inaad u seexato qaab khaldan. Waxaa dhacda in aad soo kacdo adiga oo dhabar ku xanuunayo, indhaha ay casaan ku yihiin, qoortana ku xanuunayso. Waxaas oo dhan waxaa u sabab ah qaabka khaldan ee aad u seexatay. Khubaro badan ayaa caddeeyay in aanay habboonayn in loo seexdo beer, waayo wuxuu keenaa in ay qoorta iyo dhabarku ku xanuunaan. Qaabka ugu fiican ee loo seexdo waxa uu yahay inaad dhabar u seexataa, adigoo isticmaalaya barkin yar, ama in aad dhinaca midig u seexato. Ugu dambayn,
haddii uu jiro qodob aad xasuusato oo aad isleedahay hurdada ayuu dhib ku leeyahay, halka hoose ee commentiga noogu reeb.